ani fikradda aqaba waxay tahay dadka Soomaalida kubadda aad ay u jecel yihiin. Dhalinyarada waxaan kubad ahayn maba yaqaanaan. Hadda Muqdisho markaad joogtid oo kale galabtii la gaaro qof kasta wuxuu aadaa waa kubad ama ha yaqaano ama yuusan aqoonin. Waxaad arkaysaa ciyaartoy badan oo tayo leh laakiin tayadooda iyo ciyaartoynimadooda waxay ku eg tahay garoonka yaryar ee salaxyada magaalada ku dhex yaala. Ma tagtaa dadka ma u sheegtaa in Soomaaliya banooni aan loogu talagelin dad Soomaaliyeed inaan banooni loogu talagelin ee dhalinyaradan kubadda cagta ku yaacaysa inay iska dhaafaan ay mataqaanaa isboorti kale ay aadaan sida tusaale ahaan oo kale mataqaanaa orodada oo kale iyo wax la mid ah marka laakiin dad Soomaali banoonigii wixiina way jecel yihiin ha jeclaadaan laakiin waxna kama keenayaan waxaan aaminsanahay in ciyaartoyda yaryar ee hadda qaarkood soo baxay mataqaanaa ku soo baxay mataqaanaa kuwii 18 sano jiray iyo mataqaanaa junior ku soo baxay kuwaas in la ciyaarsiiyo macallin Soomaaliya mataqaanaa sida hadda la sheegay leeyahay macallimada Soomaalida inta badan ma haystaan lesson ma haystaan oo mataqaanaa FIFA in ciyaartoydaas waqti la siiyo macallinka Soomaaliga waqti la siiyo iyaga la isku hayo oo horyaalka Soomaaliya ka ciyaaraan laakiin ciyaartoy tiro badan oo dibadda laga keenayo oo la leeyahay mataqaanaa waa 15 ciyaartoy dibadda laga keeno aan u malayn ma inay wax soo kordhinayaan waxa laga yaabaa shakhsi ahaan inay u fiican yihiin laakiin tiim ahaan dad wada dheela ama is yaqaana maaha isbuucaas meesha lagu haynayo ama labada isbuuc ee meesha lagu haynayo laga yaabaa inay mataqaanaa is salaamaan marka waxaan